السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم walaalyaal waa salaamantii meel kasta aad joogtaan waa walaashiina Maryam Briti mar kale oo idin leh kusoo dhawaada subscribe-yada cusub oo hadda kusoo biireen channelka aad ayaad u mahadsantihiin gambaleelka taabta ama jaraska hore u fiirsada wixii idin dhaafay ka faa'iideysta walaalahayga qaaliga ah dadkii hore nala joogayna like hanaga baqiilina ehelkiina la share gareeya like gareeya walaalihii qaaliga ah la-aantiina waa awaar idinka ayaa kor ii qaadi karo markasta haddaa isla shaqeeno oo idinka ii fiirsatiin oo ii share gareysiin like gareysiin anna kor ayaan u kacaa insha allah wixii cusubna aniga ayaa iiga sugaysiin waa walaashiina Maryam Briti oo wax kastay gurigeeda u subsanaysa nala share gareynayso maanta jimco mubaarak ayaa idin leeyahay sida caadada ay la barateen jimco kasto jimco mubaarak ayaa idin leeyahay maanta qadadii jimcada ayaan kasoo tuuroonaa maanta baasta yar iyo suugo shiishiid ayaan rabaa inaan maanta kasoo tuuro xaajiga ayaa wuxuu dhahay jimco waay maanta baasta dheer ayaan rabaa markaana waxaan jeclaystay inaan nila sheer gareeyo inta waxaan ku haysanaa nus kiilo iyo ruwac oo hilib shiishiid oo fresh ah waaye marka page-kayga oo ku jira anoo bashmeel kusoo suubinaya hilib shiishiidka marka nyaanyadii asiga waa isku dalacay laakiin maanta waxaan rabaa kushnadan hilibkan keligiisa inaan suubiyo oo aan saan u shiilo oo cusbadiisa ayaan ku daraa wax yar cusbo ah ayaan ku daraa marka waxaan jeclaystay inaan maanta sidaan aan u suubsado oo idinkan nila sheer gareeyo suugadana gooni aan u suubiyo hilibkana gooni aan inta ugu shiilo kadib aan isku daro intan waxaan ku haysanaa rosemary iyo wax yar nacnaac ah ayaa meeshaan ku haysanaa halahan bis ayaan hilibkan ku shiileynaa kadibna waxaad ila arkaysiin suugada nyaanyada aan dalcaa waa isku soo naqanaynaa walaalahayga qaaliga ah walaalahayga qaaliga ah waa kana hilibkii biyo dhan ma ku taabanin biyihii asi dhalay bis oo isku shiilaa sidaan ayay diyaarna noogu tahay walaalahayga qaaliga ah qaaca idinka celinooyo jimco mubaarak ayaa mar labaad idin leeyahay sida caadada noo tahay inaan suurtal kaaf akhrisano oo shidano oo iska duceysano inta muslina oo maxamed oo caafimaad qabay allah u ziyaadiyo inta jirana allah caafiyo isku wada duceena ilmaha ilmo baar allah noogu dhigo anagana qaatimadeena qaatimo fiican oo iimaan leh allah noo wada sahlo walaalahayga qaaliga ah waa kana hilibka sida ayuu diyaar noogu yahay waa iska dhiganeena suugadiya marka hadda diyaariskeeda aan galaa waa kana sida ayuu diyaar ku yahay suugada ayaan soo diyaarinaa walaalahayga qaaliga oo isku soo naqanayna sidaan ayuu hilibkii aaga baxnay walaalahayga qaaliga ah waa kana meeshaan waxaa noogu saaran saliidii iyo basasha ayaan kusoo shiilay intana tuun sanjabiil iyo huruud sida caadada markasta aan ku shiilo wax kastoo aan guriga u suubiyo waa kana waxaan ku daraa hal xab shiishiid ayaan ku daraa walaalahayga qaaliga ah kusoo dhawaada channelkiina waaye qalbi furan niyad saafi ah gacmo furan waa kana walaalahayga qaaliga ah nyaanyada ayaa hadda ku shuganaynaa saxabayaaya aan soo shiiday channelkiina waaye subscribe like share comment ducada dhiirigelinta agtiina ayay jirtaa walaalahayga qaaliga ah markaad nyaanyadan iyo ha isku gasho si fiican markay u bislaato wax yar ka dhiman yahay ayaan isku soo naqanaynaa waxaan ku darayo haddii la arkaysaan walaalahayga qaaliga ah waa kana suugadii sidaan ayay diyaar noogu tahay yacni way gursatay waad ujeediin maasha allah waxaan ku daraa hal xab maraq jumbo ah cusbo waxyar hilibka hadda ay ku daray haddana inta waxyar ayaan ku darsanaa baradho 3 xabo oo aan soo jarjaray waa kana iidane marka kabsar caleen iyo tuun iyo wixii kale aan gadaal ugu darayo waad ila arkaysiin waa kana marka hadda baradhadii aan ugu bislaato walaalahayga qaaliga ah markay noo bislaato baradhada ayaan isku soo naqanaynaa wixii dhiman waad ila arkaysaan kusoo dhawaada walaalahayga qaaliga ah waqtiga ayaa hadda la gaaray marka hadda waxaan rabaa baradhada intay wax yar ugu dhiman tahay hilibka ayaan kusoo daraa
waa isku soo noqonayna. walaaleyga qaaliga ah waa kana hilibkii iyo baradhadii. waxaan rabaa inuu xoogaa dheecaankii hilibkii waxa dhan suugada inuu isdhex galo. waad ujeediin. haddaa rabtid waa ku dalcan kartaa, haddaa rabtid sidaan ayaad u suubsan kartaa. dooqaaga waaye. ani sidaan ayaan jeclaystay maanta inaan u suubsado oo aan nila sheer gareeyo. haddana dabka waa u gaabiyey, baradhada hanoo soo bislaato kadib wixii noo dhiman ayaan isku soo naqanaynaa. walaaleyga qaaliga ah waa kana maasha allah, baradhadii way noo bislaatay. tuun iyo kabsar ayaan ku daraa oo fresh ah. waa kaas maasha allah, special suugo lagama sheekeyn karaan ku dhahay suugadaas siday u macdahay. waa mare muriidi stylekeeda. kusoo dhawaada. jimco waaye maanta, ilmaha iska baashaalooyiin. cashaqadadina diyaarina buubsiya rabo. hadda waa kana waxyar ha ku huuro kadib barbarooni iyo basasha markaan ku daraayo waa isku soo naqanaynaa. walaaleyga qaaliga ah waa kana wuu noogu huuray tuuntii iyo kabsar caleentii. haddana waxaan ku darsanaynaa barbarooni iyo kabsar caleen. waa ku huurinaynaa. walaaleyga qaaliga ah waa kana baastadina way noo saaran tahay, waad ujeediin. marka waa soo diyaarinaa, waa isku soo naqanaynaa. qadadii dhan markaan soo diyaariyo aan saxanka kusoo shubo ayaan isku soo naqanaynaa. walaaleyga qaaliga ah suugo qurux badan oo macaan badan waa kana, waa isku soo naqanaynaa. markaan qadada soo diyaariyo ayaan isku soo naqanaynaa. walaaleyga qaaliga ah waa kana qadadii sidaan ayay diyaar noogu tahay. waa kana walaaleyga qaaliga ah, ilmihii adheedheelooyee raali iska ahaada. qadadii ayaa la sugoyaa. casiirkii waa kana halaan ayaa nila sheergareeyey. waa kana qadadii macaanta aheyd quruxda badneed. suugada siday noogu soo baxday walaaleyga qaaliga ah baroowe jariba. waa walaashiina mare muriidi leh oo idin leh. idinka la-aantiina waa awaar, idinka ayaa kor ii qaadi karo. waad ku mahadsantihiin kommentiyada quruxda badan aad iisoo qortaan, markasta aad garabkay taagan tihiin. aad ayaa idinkaga mahad celinaa walaaleyga qaaliga. aad ayaad u mahadsantihiin sida aad garabkayga wada taagan tihiin. walaaleyga qaaliga ah waa idinkaga mahad celinaa. la-aantiina awaar waaye, ani la-aantiina maba socon kari. idinka ayaa kor ii qaadaya. iyo kasta oo aad jeceshiin waa idiin soo gelinaa. raali ka ahaada, ilmihii ayaa dhibooyaa. ilaahay khayr ha noo siiya ilmaha meel kasta ay joogaan. ilmihiina waa kana walaalaheyga wax kasta waa idinla sheer gareena. wixii cusubna aniga ayaad iga sugaysaan. wax alle waxaan gurigay u suubsanaha yaraada ha badnaado inaan ila sheer garay ayaan jeclahay. inta haysata allah u barakeeso, inta haysana allaha siiya. aan isku duceyno meel kasta aan joogno. wadankeena allaha noo fiicneeyo, nabad fiican allaha noo siiya, cadowga allaha naga qabto. meel kasta aan joogno jimco mubaarak ayaa idin leeyahay. ilaahay jimcada khayrkiisa hana soo wada aadiyo. walaaleyga qaaliga ah waa ka meesha ayaa idinkaga baxaya. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.